Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada maanta waxaan idin wadaa chicken curry oo aad u macaan badan maasha allah oo u maleynaysid inaa maqaayo laga soo gaday mar walba sidaana u subsanaa maasha allah familkayga aaday ugu helaan intaan spice rabaa inaa ku daro insha allah chickenka qiyaasta aday kugu xiran tahay inta oo subsanoosid ama family size-kaada insha allah meeshaan waxaa ii saaran cusbo xawaaji curry gram masala paprika chili powder kaamuun shiidan iyo waxaa ii saaran oo kale garlic spice mix waaye oo xawaaji iyo waxyaalahaas ku jiro insha allah intaasaa rabaa inaa oo chickenka ku daro waa kaas chickenka waa kan waa soo dhaqay hilibka nooca rabtaa isticmaal kartaa ama malaaya isticmaal kartaa ama hilib ama chicken maadaama chicken curry yahay kan chicken ku fiican yahay insha allah waxaan daray wax yar oo sanjabiil shiidan iyo tuun shiidan oo ku daray marka intaas kadib waxaa ku daraa kulli spiceski oo hadda arkayseen wax yar yogurt yogurtka oo plainka waaye oo flavorka lahayn intaasaa isku qasaa insha allah si fiicanaa rabaa inaa iskugu qaso ka bacdi faranjeerka gelina insha allah faranjeerka waxaa geli kartaa 15 minute ugu yar ilaa 2 saac marka maadaama hadda suubsanooyo insha allah waa kaas bacaa ku daboolay 15 minute oo ku jirnaana faranjeerka laakiin 2 hour kasii fiican just in case 15 minute waa enough oo wax isla markii hadda suubsanay sidoo kale waa kaas 15 minute kadib faranjeerka kasoo bixiye waxaa saarooyaa ama waa dudubi kartaa birta ku tuwe and then maraqa ku shube ama ovenka gelinaysan oo aad u fudud yahay ama grillin waa lagu subsadaa insha allah marka ani ovenka gelina waxa ku jirnaana ovenka 20 daqiiqo 20 daqiiqo insha allah waxaan sii jarjaranaa yaanyada hadda arabteeda yareeyo gooso ama weeweyn waa isku wada mid because kori hoos waa shiida halkaas yaanyadii yaa jarjaranoyaa kabacdina insha allah waa isku dalacaa basasha hal xabaa ku darooyaa hal xabo waa enough halkaas waa jarjaray basashii hadda panka wax ku shubayaa wax yar olive oil iyo half butter maadaama butter chicken yahay butter u baahan tahay hadda ku yaalin waxaa isticmaal kartaa ghee ama subag marka waa isku wada mid laakiin butterka uu ku fiican yahay creamy oo noqonaa waa kaas asxaabta waa dhilaalay 2 xabo tuun oo jarjaray waaye aan ku shubay tuuntaas iyo waxaan ku shubaa kale hal xab basbaas waaye yaryariis u jarjaray waa kaas basalna waa ku shubay waa kaas hal xab basal waa daarkeysaan jarjaray waa isku qasaa basash inaa la gaduuday ma la rabo siday oo baryaaniga camal just saute la rabo is noqdo jilaac waa kaas basasha diyaar markuu noqday waxaa ku darooyaa wax yar xawaaji kaamuun wax yar oo xawaajiga curry markaa ku daro waxaa kaloo ku darooyaa cusbo paprika iyo red chili waaye oo mix markaas coriander seed waaye kan kabsar caleenta mirihiisa oo maleynaha malguca coriander seed waa optionalkaas haddaa rabtid lee ku dari kartaa waa kaas intaas spice isku qasooyaa iyo basashii yaanyo aa ku daray 1 daqiiqo 2 daqiiqo camal u dhaxeeyo intaa sugaayo waa kaas yaanyadii ku daray kabacdi insha allah waa isku daboolaa waa diyaar oo noqday hadda waa kaas had diyaar waaye marka waxaa subinaa waa shiida insha allah yani
ani sidaas ula jeedin yaanyada haduu weyn yahay dib ma lahan kori hoos waa isku shiidi rabaa kulli hakaas si fiican u shiidooyaa liisho sida uu noqdo insha Allah waa kaas diyaar waaye wax yar simira u geeyay dabka u gaabiyay chickenkii waa diyaar 2 daqiiqo kadib waa ka soo bixiyay hakaas kora aan ka saarooyaa hakaas asxaabta sooskii waa diyaar waa isku dhex qasaa hadda camal waa dhidhami kartaa hadda extra cusbo u baahan tahay ama basbaas kuleel inaad jeceshahay inuu ahaado extra basbaas ku darsan kartaa insha Allah bararka haafkiisa kala waa kan hakaas kora ka saaray kabsar caleen diyaar waa insha Allah hadda waxaan diyaarinaa ceeshkii lagu cuni lahay garlic naan meeshaan waxaa ku shubay leebito hal qaado hal sokor iyo biyo isku qasay intan waxaa ku shubayaa 3 cup oo bur hakaas midka saddexaad iyo yogurt ku daray iyo saliid olive oil qiyaasta insha Allah description-kan ku soo qoraa biyo qandaca ku daray iyo leebitadii intaas isku qasooya insha Allah waa kaas waa diyaarinooyaa garlic naan nus saac ilaa 40 minutes camal sugay oo markaa oo qasay kadib marka gacantaasaan ugu riix kartaa maadaama jilaac oo yahay ama simply waa fidine kii burka lagu fidinaayay sidoo easy kugu noqdo oo time badan ba ka qaadanin normally garlic naanka waxay u fidiyaan ama gacanta ku fidiyaan saana loo hindida markay subsanaayeen ani marka saas ma suubinooyi sida oo ceeshka oo kala u suubinooya insha Allah waa kaas warwareega caadiga aan fidiyay it doesn't matter kale shape leh waa shape kana waa oo la wada cunooyo leh waa hal mar it doesn't have to be perfect waa kaas geedka originally waxaa lagu suubiyaa garlic naan tinaarka America tinaar ma jiro warkiisa marka either oven-ka geliyaan ama saana loo dubaa garlic iyo kabsar caleen iyo toon waa intaan u jeedin marmarinooyaa markaa dubay waa kaas aad u carfooyaa maasha Allah kaas inta kuleel yahay asaan u marmarinooyaa waa kaas xabta diyaar waaye maasha Allah bariis cadna waa kariyay hakaas qadada intaas waaye maanta insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin daawashadiina wacan hadda ka heshay like isaar asxaabtaadan kalena ugu share gareey insha Allah